ururka cilmi baadhista Soomaaliyeed ee baryahanba ka socda guriga ummadda ee magaalada madaxda Djibouti barnaamijkan waxa aan iskugu yeedhnay aqoon-yahano kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed sida Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo booq magac dheer oo ka socda akaademiyada lagu magacaabo akaademiga nabadda iyo horumarka ee Soomaaliland waxa kale oo nagala soo qayb galay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar waan filayo in magaciisa kaliya tii Soomaaliya oo dhan ku wada garanayso waxa uu rector ka yahay jaamacadda Macalester la yiraahdo ee degmada Minnesota ee wadankaasi Mareykanka waxa aan jecelahay bal marka hore in ay nooga waramaan booba iyo Samatarba bal sida ay u arkaan shirkani halkan maanta ka furan waxna bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mid waxa weeye shirka halka ka furmay midna waxa weeye nooca uu yahay shirkan waa shirkii tobnaad ee cilmi baadhista Soomaaliyeed oo muddadii 30 sanadood ugu dambeeyayba soo taxnaa hadba meel lagu soo qabanayay dalal Yurub lagu qabtay Djibouti lagu qabtay Somaliland lagu qabtay Muqdisho lagu qabtay Mareykan lagu qabtay waxa isugu yimaada aqoon-yahanka Soomaaliyeed waxaana isugu yimaadaan aqoon-yahankaas oo meel kala gedsan ka yimid cid waliba waxay soo diyaarisaa arrin ay soo cilmi baadhay oo dhaqaale dhaqan af caafimaad siyaasad wuxuu ku lug leh oo ay diraasad ka soo sameysay taasoo ay gooyaan guddiga shirweynaha hagaysa oo muddo la isu diro waraaqahaas halkan la yimaadaa waraaqahaas halkan laga akhriyaa dad kale ka soo qayb galaan wixii ay ku dari karayaan ama wixii ay cadayna ama su'aal ama jawaab ay ka doonayaan ayay ka geystaan shirku sidaas uu ugu qabsoomay qaybtiisa hore oo ay ka dhacday oo dalka Mareykanka oo qaybtii labaad si wanaagsan u socday Cabdiraxmaan inta uu yiri waxaan ku daro dheeraad hoosta u weyn ma jiro shirku ma aha ku oo lagu falaqaynayo maanta waxa jooga cilmigu inta uu ka gundeer yahay uu ka adag yahay waxa la isku yimid marka waxa weeye cilmi abuurka dadka Soomaalidu ay dhalinyarada wax barataa ay abuureen muddo sodonka laga joogo in la sii wado marka khasnada cilmiga wax lagu darsado ya waxa ka imanaysa marka baarida nooc badan bay leedahay dad baa waraaqa keenay lagaga hadlayo dabeecadda iyo roobka dad baa keenay waraaqa lagaga hadlayo dumarka iyo hawsahooda dad baa waraaqa keenay dhaqaalaha lagaga hadlayo dad baa keenay lagaga hadlayo technology iyo science-ka wuu fara badan yahay laakiin guntiisa hoose weeyii dadka Soomaalidu inay fahmaan lagana shaqeeyo sidii kayd cilmiyeed loo dhigan lahaa ama maanta laga faa'iideysto waa applied kaas amba ha noqdo pure research oo laga yaabo in 50 sanadood muddo laga joogo amba 20 sanadood inuu soo baxo oo loo baahdo fikradda maanta la dhaliyo laakiin waa cilmi dhalis sababta la isku aqoon-yahanku iyagu may wada shiraanay wax wada meel dhigaan kullu bini aadamku degmada dadka uu ka yimid calaamadaha ay leeyihiin dhammaantood kama bixi karo soo garan dhalinyarada dadka Soomaalida wax garadka wax qoro Cabdiraxmaan kamid yahay waa dad Soomaaliya waa dad muslina degmooyin kala gooniyay ka yimaadeen marka saamaha dhaqanka guud ee Soomaalida uu leeyahay wada leeyahay laakiin haddana qof walba dabeecad gooniya iyo qofnimo gooniya ayuu leeyahay marka qof walba in sida goonidiisa loo eego muxuu yahay hebel amba heblaayo maxay tahay aniga ila tahay waa madal aqooneed nin waliba fikirkiisa siyaasiga uu qabaa waana u gaar laakiin tii madashani ma aha mid aanu isugu nimid ama aanu ku wadaagayno ama aanu ku qaybsamayno waxaanu ku midaysanahay waxaan la yiraahdaa cilmi baadhis oo cid waliba halkay ka timid dibtii ka taagneyd ama waxa ay u aragto in la xiiseeyo nabaad guurka kamid ah dhibaatada afka Soomaaliyeed haysta kamid ah dhibaato caafimaad baa jirta mid dhaqaale jirta mid siyaasadeed baa jirta kama hadlayno oo kaliya waxa maanta taagana waxa laga hadlayaa waxa la darsaya wixii dhibaatooyin dhaqaale ama dhibaatooyin dhaqan ama afeed ama sugaaneed ama caafimaad soo dhacay sidii ay ku dhaceen iyo sida looga baxayo waxa la darsaya mustaqbalka marka imika nabaad guurka kale laga hadlayo waxa la darsaya xaaladdu waxay ku sugnaanaysaa hadii dhir jaristo ay sidan ku sii socoto baylaha maanta afkii Soomaaliyeed haysata akaademigii af Soomaaliga Muqdisho ayaa jiray maanta nin waliba in buu meel la tagay dabeedna nin waliba intuu meel fadhiisto si uu qora
marka waxyaabaha dadka Soomaaliyeed kulmiya ayaa laga wada hadlayaa inuu ka hadlay xuduudaha iyo sohdimaha ay ku kala jiraan ee cid waliba meesha Soomaalidu waxay tiraahdaa oo sida u kala sarreysa loo kala qaaday haddii aynan wixii dawladdii iyo wixii aynan jirin sidee waxaan u suuragalay qasab ma aha in laga hadlo dawladda maanta Djibouti baan joognaa dad Soomaaliyeed baa degan waxbay la wadaagaan dadka Soomaaliyeed ee kale mushkiladda dawladnimadu cid bay gaar u tahay cid ba meel bay u joogtaa cid baa jamhuuriyadda leh cid baa goboleed Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka tirsan leh cid baa Soomaaliya u dawladda marka waxay ka dhaxaysaa cilmi-baaristani dadka Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadla meeshay doonaan ha deganaadaan ama Itoobiya ha ku jiraan ama Soomaaliya ha joogaan ama qurbaha joogaan ama Kenya ha joogaan ama Djibouti ama Somaliland waxay ka dhaxaysaa dadka Soomaaliyeed ee aqoonta iyo afka wadaaga in mashaakilka dadka Soomaaliyeed haysta wixii ay diraasad ku sameyn karaan ay ku sameeyaan waxaan inta ku daray waxa weey horta aqoontu markay runta tahay la taaban karayo waxa weey markuu qofku aqoon dhaliyo aqoonna waxa lagu dhaliyaa research inta sameeyay inaad wax qorto adduunyadu ay fahamto la saxo intana library-ga la dhigo waa aqoon dhalistaas waa scholar dad badan oo mutacallim oo wax bartay oo wax akhriyi kara oo qofka kale wuxuu qoro fahmi karaa way jiraan Soomaalidu ay ku badan tahay laakiin dad cilmi dhaliya ya way ku yari waa kootaas marka ururkan wuxuu ka mid yahay ururka quraanu leenahay sida runta ah ee cilmi dhalis loo saaray oo marka keenay dadkii cilmiga dhalinayay iyo dadkii akhrisan lahaa la isku keeno halka lagu fahmo waa koow mid labaad aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha adduunyada markii degdeg markii ma arkayso haday jirtay hadii aanay jirin wax shalay waxaan idhi indhaha qiiq wax uga adag ma jiro markuu qiiq indhaha ka galo indhii way ilmeynayaan way xirmayaan way diidaan indhu way diidaan qiiq dhegtu qaylada dheer faraha badan la way diidaa soo ma garan sanku urtu wuu diidaa hadama urtu ku qurmoon wuu diidaa aqoon darradu waxa weeye qurmoonkii maskaxda ee u tahay maskaxda way diidaysaa aqoon darrada marka sababtan iskugu nimid waxa weeye marka in laga shaqeeyo ya maxaan ku rahay maskaxdii oo cuntadii maskaxda la sameeyo way finally waxaan ku darayaa dhibaatooyinka haysta dadka Soomaalidu way fara badan yihiin Cabdiraxmaan waa ka taab nabad guurka wali aad ma inaan fahmin waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ay haysta ayay ka mid oo geedii wadanka Soomaalida ka baxay gobol ilaa gobol ya wala gooyaa meel kale loo diraa soo adamad aniga waxa ila tahay arinta dawladeed siday tahay siday u burburtay halkay taagan tahay communities kala duwan waxa ay qabsadeen amuurahaasi waxay ka mid yihiin dee ballaarka weyn ee Soomaaliyeed ee la darsayay ka mid yihiin laakiin de kalideed un ma arrimaha soo qaadeen arrimaha kooda hadlaysay oo shalay mar aan maqlay waxa ka mid ah maxaa Soomaali burburiyay oo qaar waxay yiraahdeen waa qabiyaad qaar waxay yiraahdeen waa aqoonyahankii sida noqday qaar ninba waxba ku tilmaamay arrimaha waaweyn ee soo qaadeen maxaa ka mid ah qabiyaadda maxaa doodii ka soo baxay Cabdiraxmaan baa ka hadlay bay la tahay anigu in badan ma taa wax ka qoray ya 20 sanadood cudurka Soomaalida qabsaday ee burburka keenay noocyo badan buu leeyahay ya quwadiisuna markay noocyo badan isku yimaadaan waxay dhalisaa mashaakil badan oo waaweyn dhaqaale darra ka mid oo dad saboola oo gaajo had iyo jeer iska ilaalinayeen Djibouti aan joogno wadarkiisa saboolnimada dadka haysta waa koow waxaanu nahay dad cudur ya had iyo jeer iska ilaalinaya oo saboolnimada iyo cudurku way wada socdaan ya gaajada iyo cudurku way wada socdaan waxaynu nahay dad cadow kala qaybiyay bari hore oo wali maskaxdoodii ay meel kala degan tahay ayaynu waxaynu nahay aniga marka gunta aan gaaro wadanka Soomaalida waxa burburiye keenay dhibaatada waxa ugu weyn aniga sida ila tahay madax dimuqraadinimadu waxay tahay aan ogeyn xukunka jecel dadka kale inay ku fariistaan sameeyay degmooyin degan diyaarada intay u keeneen ku burburiyo hargeysa burcay ka mid tahay madax xumaatay oo quruntay oo kartideedii aan lahayn
dimuqraadinimadu waxay tahay aan ogeyn markii dambena dawladnimadii qabiileeyey ayaa aniga ila tahay iyo gunteedii noqotay kaga dhigtay dee shicibkiina markaa way kaceen ya way kaceen waxay dhahan dee tan yeeli kari mayno markaa dee waa kii way qaraxday soo damaad gar madaxweynihii ugu dambeeyey soomaaliya maxamed siyaad barre isagoo taangi lagu sido ya waa kii isagoo ku dhow inuu qaawan yahay waddanka ka baxa marka dimuqraadnimo la-aanteed iyo madax xumo karti aan lahayn xalaalna aan ahayn ayaa aniga arrintii iga gashay haddii taa la baaro waxay la tahay in wax dawo la heli karo dhulka qaarkeedna taa wayba galeenoo dawooyin bay ka keeneen dee qabyaaladii iyo awood jecelka iyo qabyaaladda iyo awood jecelka iyo kartitarada ya iyo xaaraantu way wada socdaan ayaa aniga ila tahay ugu noqdo ilaa 1960 oo laba gobol oo Soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay isku darsameen iyagoo baadi doonaya riyo bariga jirtay oo ahayd shir Soomaaliyeed in ciddii hoggaanka u qabatay dadka Soomaaliyeed 1960 ay si qabiilnimo ugu danaysteen hoggaankii ummadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Suldaan baa wuxuu oranayaa hadday maalintiina hor kacaan midhamo weyne 9 sanadood ayuu maamul caynkaasi dhisnaa nidaamkii ka dambeeyay kaasa u gobol xaaday dabeedna nidaam military oo Maxamed Siyaad Barre hogaaminaya ayaa yimid sanadihii hore u muuqday inuu yahay nidaam wadaniya oo dadka u garsooraya laakiin tii isaguna markii dambe ku soo dhacay inuu si qabaliyo ugu shaqeysto ilaa maanta burburkaasi qaybta Soomaaliya oo aan Soomaaliland ku jirin oo intaas soo doorasho soo gashay oo dib u heshiisiin gashay oo hub dhigis gashay oo dadkii hubaysnaa noloshii dib ugu noqonayaan oo mar labaad aanu maanta isku dayaynay inaanu madaxweynihiina dooranno golihii deegaankana dooranno way aragnimo aanu isleenahay dadka Soomaaliyeed way idinkaga dayan karaan waxay Soomaaliyeeday oo dagaashay in agabkii dawladda wixii ay dadku wada lahaayeen lixdankii markii la xoroobay maandeeq baa samaysatay waxa la yiri way mataaneysay laba gobol bay noqotay dadku gaawihii bay u soo cosheen cid waliba waxay doonaysay inay maasho cid baa maashay sidaas uu timcada u leeyahay dambarkeedii maandeeqnimaan doonin baa dhamay halkaas uu burbur ka yimid ilaa imikana maanta waa lagu adeeganayaa qaabkii dawladnimo waxa la doonayaa mashaakilka maanta koonfurta Soomaaliya ka taagan halkii uu Maxamed Siyaad Barre ku dhameeyay ayaa laga qaaday anuu Cabdiraxmaan inta waan kaga yar duwanahay waxaan kaga duwanahay waxa weeyi markaad guda gasho anuu waan guda galay markaad guda gasho laba line ayaa is-ag socday waddanka Soomaalida markii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay baxayeen waad arkaysay waxaan ku rahay biqilka soo socda waad arkay laba line baa saas u agsan line wuxuu ahaa ku wadaniya dad hagaagsan oo doonaya inay wadaninimo waddanka ku dhisaan oo cadaalad lagu dhiso oo shilinka laga soo qaadayo dumarka waxiibinaya aan la xadin ya oo ummad la dhiso dad caynkaasi way jireen anu waxaan aaminsanahay way jireen anu waxaan aaminsanahay aadan Cabdullaahi Cusmaan dawladdiisa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen dawladdiisa oo waliba dawladda Cabdirasaaq Xaaji Xuseen inteeda badan ay wasiiradu ahaayeen dadka waqooyi Soomaali British Somaliland ka yimid imika Somaliland jamhuuriyadda la baxay laakiin waxa ka soo horjeeday dad gobolladoo dhan ka yimid waqooyiga ka yimid koonfur ka yimid oo shaqadoodu ay ahayd inay dawladnimada ka dhigtaan ya burcada oo dawladnimadu inay noqoto wax iyagu ay leeyihiin oo ay ku maalaan sabab labadaas ay iska hor yimid in badan baa la iska raacay ya waxaan anigu qabaa labadaa xidid waddanka Soomaalida weli kamay dhamaan amba waqooyi ha noqoto ama meel kale ha noqoto kamay dhaqaan labadiiba way joogaan nasiib darradu waxa weeye maanta kii burcadka ahaa ee qabiilka ku shaqaysanayay jaahilka ahaa ee waxba garanayn ee tollaayay lahaa ayaa maanta ayaa ku badidaliyay laakiin intii kale way noolyihiin xamar gudaheeda ayay maanta joogaan xamar dhalinyaro iyo rag iyo dumar ayaa is urursaday oo maanta xabashi iyo waxa wadata la dagaalamaya soo damaadka qoomiyad baa wata diin baa wata ya soo garanay marka labada kitaab way is ag yaalaan qof walba waa in la weydiiyaa wada labada kitaabkee baad raacsan Maxamed Siyaad Barre xukunka wuxuu ku qabsaday goldoloolo ka muuqatay maamulkii markaas ayuu ku qabsaday aadan Cabdullaahi Cusmaan waxa loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aadan wuxuu magacaabay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ra'iisul wasaare
cabdirashiid wuxuu magacaabay cabdirasaaq xaaji xuseen kan maanta inala joogo wasiirka arrimaha gudaha cabdirasaaq wuxuu magacaabay maxamed abshir muuse mataan oo noqday taliyihii ciidanka cabdirasaaq wuxuu magacaabay daahir dhegaweyne oo noqday dhiijigii wasaaradda arrimaha gudaha intaasi isku qoys baa ambaqaadku halkii kharibnay waa halkaas dadka Soomaaliyeed baa lahaa maxamed siyaad barraa yimid cabbaar markuu geedigiisa wanaagsan u waday ayuu dib ugu noqday inuu casharada qaato dabeedna arrin qoys bay noqotay dawladana qoys ma yeelan karo haddii uu yeesho dadkuna way ku kacayaan dhibtu halkay ka timid waa halkaas laba gobol oo Soomaaliyeed baa isu yimid wuxuu ka xumaaday aadan cabdilaahi ismaan markuu magacaabay cabdirashiid cabdilaahi ciise wuxuu ahaa ra'iisul wasaare markuu magacaabay cabdirashiid maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ma yahayn gobollo isu yimid laba jamhuuriyadood oo isu yimid bay ahaayeen waxa muuqatay in Somaliland markii ay caalamka qaadatay 60kiina iyadu doonaysay midnimada Somaliland ma caashiqin xamar Somaliland xamar waxay u tagtay in shan Soomaaliyeed kan waxay ahayd wada loo maray dabeedna waxba la isu qaatayba in gobol yar oo ka yimid meesha dabeedna quursigaasina uu yimid Somaliland waxay tagtay meesha iyadoo SNL iyo NUS SNL iyo USB way isu jireen waxay tagtay xamar oo qolaa dir iyo daarood la isugu haysto oo lagu qaybsanayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare iyo ra'iisul baarlamaanka qolooyin waxay soo dhigeen nin qablan la yiraahdo oo USB qablan waxa loo dhigay nin daarood oo warsangeliyeen iyo waa laga reebay marka sheekadu waxay ka xumaatay nidaamo qabaliya oo ka dhismay oo markii dambana dhismay maantana ka dhismay cabdiraxmaan dan uu ka haysan anuusa waxaan qabaa dan doodiisu inay dalab kale aadan cabdullaahi cusmaan haddii uu doonayo inuu qabiil uun dhiso إني هويها يا عبد الله يا عيسون بكر يقول لها رئيس الوزراء مو يلين ما أقدر ذاتك وقوي الجوجا لما يقول وقوي كانوا خنم ذاتك وقوي كيمد يقول جبيسن بحمر تجي هذا بلاده يقول جبيسن يدي وحال لقولي محمد إبراهيم قال حمر تجا حمر مكان تكتانها صون قانينا إذن كون إسكو مدكي أن سيدنا صون قانينا ولا جبلا تجي ولا تجي يا مركي لا تجي سياسة لنا وبير يا وبير كذا كعيسى ونكسنته لأنه واحد حساب شت كيم بالعيارية وأنا لما يسكوا أقوتها وقوي ويتجي واحد لقولي وقوي جبدا وذا وقوي جبدا ونكسنته ميدان حساب تمين هذا عبد الله اسمه وعيري ميدان حساب تمين صوت كرمي أنا ولا حساب تمام صوت مالك أنا واحد دنك من سنة هاي حدين دليل أي تسوى قوي إن أنا لقى قريب قرين دولة دي بوحدة صار لحد كي يوحي كذب بيه إلا محمد إبراهيم عقال والنقضي رئيس الوزراء كون يصغر بقول يتضبط لحد كي أنت هتضبط سنة وجوه رئيس حدين ليه هاي ولا نقضية وحنا أي كجيران وحوي دمرك الله يسكت درسمه شس كين بسياسة العيارية إن العذيبو يا أنت هذه تداضى محا كلها محا ودي ذا هو قوي مالنتينا إلى هو اللي بدي جمهورية سكت يصنع بيننا سمعت كلام إذا كل رئيس الوزراء مدحوينه قاضي أنا كل رئيس الوزراء ما قاضينا أو بايس فيرسا جنرال كيبليس كان السيا إذا كنا جنرال كيبليس كان قاضي ويوهبون إذا هو قوي من دودا كلام أنا وحن قبا ولينا ما أرك إن دودا هو قوي ويصور دي كان مالنتا على عدو تاكلي أو تشس كيم كأي كقريب كلام مركا علنا واحد مددن هو قوي وقت جاهنا استجاب صبر هذا عبد الله اسمان عبد الله عيسى كم بيجي كريم رئيس الوزراء إن كستو يذكر رأيان سيدو أحمد شاقي وايو هذا عدة صوت دورت هذا عدة برلمان كان صوت دورت مركا عدة صوت دورت هي أما السوشيال بيس كيسو مو هين هوية وحوش رحنا نكله عبد الله عيسى ده اللي يقول ربي الشيخ علي شمعاله أي يسوت هاي ماشي مركا هوية مرشحة وتاجنا وحوا الشيخ علي شمعاله هذا عبد الله اسمه وحو قاتي عدي وعضيسي أولو لينيسي وهاي عبد الرشيد يا عبد الرزاق يا الريركاس شكذا كليتها لا وحوي محير وقوي يقولوا وين رئيس الوزراء نقادنا كنا نقادنا كل يسقال بقولي اللي هي كنتم كي أي حكم هوسات كي لسي قلوا كونفراد حكم هوسات بالسي اللي هي كنتم رئيس الوزراء عبد الله عيسى الله قدقي لح وسير باللو سميي قلير باللو سميي سومال لا نوح حرود اللي هي لا تنكي تون لحدك قلوا ذا سي وحي قبيالة صوب بالوضع
1956 iyagoo 4 sanadood ku soo jiray oo dirya daarood u kala fadhiya oo deeradu dhex miranayso annagoo qowmiyad Soomaaliyeed sidana maalinba awrba dhaamiya 56 qarannimada Soomaaliyeed ama Somali nationalism halka ugu sarreeyay marka dalka Soomaaliyeed la eego xamar buu ka taagnaa 26 June 60 Soomaalinimadu halkay ugu sarreeyay Hargeysa ka taagnaa annagu waxaan u nimid dad Soomaaliyeed oo ku ballamay shantii Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed waxa lagu dhifaan gareynayaa shirarkii Pan Somali Movement ee Maxamuud Xarbi oo madaxda ka ahaa kongareeskiisii ugu dambeeyay 58 uu ka dhacay magaalada Muqdisho markaasii Soomaali ku heshiisay inay shan Soomaaliyeed sameeyaan annaga kursigan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan noomay muuqan ujeedada inta ka fog ayaanu lahayn marka sheekadu waxay tahay laakiin Cabdiraxmaan waxa way waxyaabaha badan inta badan waan isku raacsan waxa way fiiri anigu ma igama dhaadhici karayso qabiilada waxa la yiraahaa inay saal koonfur u fadhido ani waqooyiga fadhiin igama dhaadhici karayso waqooyiguba qabaa'il wuu leeyahay soo damad oo islaayo wuu leeyahay oo heshiiyo oo islaayo way leeyahay qabiil waxa la yiraahaa meel walba fadhiya Soomaaliyeed ku jirta halkan Djibouti ya ayay jirtaa waa kolba sida loo maamulo loo dhiraandiriyo amba inay kugu noqoto garneel kugu qarxa amba inaad meel iska dhigto iska ilaaliso way taasi waa kow midda labaad anu waxaan leeyahay shaki kuma jira dadka waqooyiga ka yimid Somaliland imaka ah markana British Somaliland markaad isku eegto inay jibbad weyn oo Soomaalinimo inay haysay taa waa la isku raacsan anu waxaan leeyahay waa xisaabtii xeega say xeega u noqotay ilkuna u nadgabaa way siyaasaddu Soomaaliga jibbada weyna waa haynaysaa xisaabtii hoosana waa inaad la socotaa maanta ay taagantahay haday waxaanu ka hadlay taariikhda maanta ay taagantahay soo dhammaadka anu waxaan leeyahay maanta waxa u banaan oo kubadda cid xitaa la tartantaaba aanay jirin ya dadka waqooyiga degan ee Soomaaliyeed ee is hagaajiyay maanta awood bay u leeyihiin madaxtinimo Soomaaliya iyagu inay yiraahaan annaka talinayna soo garmaysa annaka talinayna maanta waa tashan kari weydeen hadaa tiin dadkii jamhuuriyadda South-ka deganaa waa tashan kari weydeen ilaa maanta annaga waa annaka tashan ya taanu ku tashanay waliba tuka wanaagsan ayaanu idin annaka madaxdiin noqon doono soo garmaysa anu waxaan leeyahay xeegadii maalintii hore halka taagnay maantana way taagantahay marka waxa weeye su'aashu waqooyigi la garay inay xisaabiyeen dastuur samaysteen ay degan yihiin ya mashaakil kale iska jira kartideedii ma leeyihiin indhaheegii ma leeyihiin ay ku arkaan walaalahooda sidaa u daadsan intay caalanka ka qaadaan iyagu inay madax u noqdaan ay wada cusub u furaan kartidaa ma leeyihiin mise tan hoose ee gaaban bay fadhiyaan sheekada taala waxa weeye halgan 12 sanadooda oo Hargeysa lagu duqeeyo lagu burburiyay umaanaan soo gelin inaanu madaxweyne qaadan dadku ujeedada inta ka fog ayay dadku leeyihiin mushkilada maanta Soomaaliya taala maaha in dawlad la dhiso Cabdullaahi madax yahay mushkilada Soomaaliya taala waxa weeye in ay dadku isu gudbaan amaan iyo nolol baa ka horeeya waa geed sarawaab marka tira xagga saran ka soo bilaabay annagu 60kii dadka Soomaaliyeed oo ku heshiiyeen shan Soomaaliyeed u keenaan riyada soo socotay xaq waxaan u leenahay oo aanu taaganahay inaan wax ayaga dhisano dadka Soomaaliyeed oo walaalaan nahay oo ay noogu xigaan kuwa Muqdisho joogana oo noogu xigta Djibouti wixii aanu la qabsan karayno inaanu la qabsano mustaqbalkana anigu mas'uul kama yahay maalintan dhinto dooda taadafno ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay on dhaqan ay ku dagaalanto dhaqan halkaad baadheen cilmi baadhista imika aad weydiin Soomaalidu hab ay u heshiiso oo dhaqan ma lahayn waylaada soo garmaysa Soomaalidu dadka adduunyada kale la mid tahay kama duwana soo garmaysa ceeb waylaada dad nabada jecel wayleey dad haliilayo waran iyo alma la wadayo qorina wayleey marka waxa adduunyada kale ka duwan ma xisaabtu waxa weeye maxay maanta dadka waranka la ordaya kuwa cayda la ordaya kuwa xagashada la ordaya kuwa qabiilka la ordaya maxay maanta u dheereeyeen ay uga dheereeyeen kuwii kala weyn su'aasha aad iyo aad loo baariyo la wareerisay taa weyn soo damaad garan anigu waxaan qabaa inay jirto dul la tagi karo oo laga soo qaadan karo hub ka adkaada qabiilka hub doqonnimada ka adkaada
xukunka xaaraanta ah ka adkaada inay soomaalidu ay heli karto halkay ka imanayaan waanaynu aragnay waxay ka imanaysaa diinta islaamku ya waxay xakamayn kartaa qabiilnimada diinta islaamku waxay xakamayn kartaa haddii si kala gooniya loo galo cadaalad darrada ay xakamayn kartaa diinta islaamku waxay xakamayn kartaa beenta iyo maxaan ku dhahaayay xaasidnimada iyo xakamayn kartaa diinta islaamka waa qiimka diyada la iskaba soo damaad dee dunyada kale cadowga ku iyada u gooni tahay dad islaam oo aan la socono islaamkana si qalada u fasakhayo waalan oo maxaan ku dhahay inay dictator iyo dajjabiyaana way jiraan laakiin diinta islaamka ee ilbaxa ah ee kumanka sanadood soo jirtay way leedahay dadka reer galbeedkuna way yaqaan taasi waa kow xeer bay leedahay dadka Soomaalidu dadkan degmada degan xeer ciise wax la yiraahdo jir laakiin xeer ciisuhu de waxa weeye laan ka tirsan xeer Soomaali way leedahay Soomaalida kale way leedahay xeer lagu dhaqmo taasina waa macdan loo baahan yahay in la soo noolay arrinta saddexaad ee soo raacda waxa weeye xadaarada adduunyada ka taagan ya ee science iyo technology u socdo ya iyaduna waxay leedahay quwad gooniya diin islaam oo ilbax xeer Soomaaliyeed oo xalaal ilbaxa adduunyada ee technology iyo science ka socda saddexdaa hadii la isku xidho oo dimuqraadiyada isku xidho anigu waxaan qabaa qabiilka in laga adkaanayo anigu waxaan qabaa xukunka foosho xun lee qoriga in laga adkaanayo anigu waxaan qabaa kala tagga la kala tagayo la isfurayo in laga adkaanayo la isku soo noqon karo soo hadda ma garan laakiin hawsheedii iyo raggeygii iyo dumarkeygii iyo kartideedii ayaa maqan challenge-kan ku hayaa Soomaaliland waxa weeye war anigu waan idin salaam ya anu inankiinii bana waan idin salaam shaqo wanaagsan baad qabatay ya laakiin de hawshii inteedii badnay way hadhaye halkeed hawsha ka galaysaan cid idin dhaantana lama hayo sheekada taala waxa weeye markaaynu ka hadlayno dhaqanka Soomaaliyeed dadka miyuu isku diraawo mise wuxuu leeyahay dib u heshiisiin si cad oo muuqata ayaanu Hargeysa iyo Soomaaliland ugu muujin dadku may dagaalamin nidaam bahala oo dalka ku habsaday baa la dagaalamay waxoogaa yaroo reeraha oo la lumiyey oo raacday ama ka soo horjeestay way jirtay laakiin dadku waxay la dagaalameen nidaam ku takrifalay dawladnimadooda way ka soo kabteen maalintii aanu gallayba dib u heshiisiintii waanwaantu way bilaabantay hubdhigistii waa bilaabantay dadkii dagaalamayay baa noloshii dib loogu celiyay waa tusaale nool oo yaalla geeska Afrika oo aanan ka lahayn dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba oo aanu gudbinayno nabadayntii iyo hubdhigistiiba oo aanu cid kasta u baahan basiinayno oo aanu leenahay waa wax dadka Soomaaliyeed mushkiladda meesha taale qolada iyo qabyaaladuna waa kala labo qoladu waa cinwaan hebel waa reebel oo DHL ka hadii warqad lagu soo diro waa loogu geynaya mushkiladdu waa qabyaaladana waxa isticmaala reer magaalka waxa isticmaala dadka dawladaha gacanta ku dhiga laakiin tii qabyaaladdu ma tahalamiyo waa qolo laba reer oo wada dega haday abaar ku dhacdo cawska way isasiyaan haduu mid abaaro waa la kaala wax dhibo ay dadku ku haysaa ma jirto dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Soomaaliyeed waanta iyo nabadaynta in la islaayo dadka Soomaaliyeed islaayeen hablo godob rooba la siiyo mag la iska bixiyo waa wax caadi ah tusaalaha Soomaaliland waa mid nool oo aan waaya aragnimadiisa ku deeqayn hadda soo koobno dood cilmi baarista inta joogtaan iyo ururka inta sanadood ee meel farbadan lagu soo qabto buug qorid iyo wax la qoro iyo wax maxaad u haystaan maal oo maxaad u haystaan wax lagu qaban karaa taa waatayna hore uga hadalnay waxa weeye cilmi baaridii waa laba mid waxa weeye waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo pure science waxa weeye ra'yi baa kugu soo dhacay waad baaraysaa waxa laga yaabaa ra'yiga aad baarayso adigoo 10 sanadood 20 sanadood baarayay inaan markiiba laga arag wax midha laga ma arko laakiin mar dambe loo aayo soo damaad garan dayaxan ma ay ruushka Mareykanku ay tageen maalin qurun lama ganin waxaan ku raahayay dayax lama tagin kadaalka ya waxa laga soo shaqeynaya 40 sanadood ayaa laga soo shaqeynay kaasi waana ka ugu weeyaan waa inaad haysataa raasamaal aqooneed oo baanka ku yaala oo maalinta ay baahida ku qabataa la soo baxo inaad galato taasi wixii lagu dhigayo maaliyadii hada wakaadi taasi fikradii waa inaad dhigtaa soo dhigay library-da taala wadan umad aan library aqoon taalin ma jirto haday jirtana waa dad badow ah soo hadda maadka taasi waa pure science talabaadna waxa weeye maanta fallaadhaas taagan dhibaatadaas maanta taagan sidee wax looga qaban karaa soo hadda maad garan waa practical soo hadda maad garan cilmigan meesha joogay iyo dadkii isku yimid meel walba ka yimid labadaba way wadaan soo hadda maad garan tii ahayd pure science ee baarida caynkaasa ha
gunta hoosa la soo qodayo iyo tii ahayd maanta waxa jooga salaada la joogo sidii loo tukanayo labadaasna la isma baradaa way wada socdaan soo dhammaan kara anuusan waxaan hadalkii kusoo gabagabeynaya dadka Soomaalida amba Djibouti ha joogaan ama Mareykan ha joogaan amba Somaliland ha joogaan amba ki aad deganaadaan inta gunta saanta waxaan jeedaa gunta la baariyo cilmiga la qoraayo maxaa maalaho loo hayaa oo waxa loo hayaa isaga kaali waxa loo hayaa waatan hore u sheegay library-ga markaa tagta dadka aad ku arkaysay buugaga yaala waxa weeye maalkii dadkii amba tagay ay degaan amba kuwa imika jooga ay qoreen library waa bank ya bank lacag baa taal library-gana buugaag baa yaal labadu waa isna waa banki aqoonta soo garmaysa kolkaa qofkii markuu doonanayo waa inuu halkaa tagaa u soo qaata jaamicadan Djibouti maydaan abuuri karteen haddii aanay library jirin maydaan abuuri karteen maqaaxidii sheekada unbay noqon lahayd ya oo cali baa sidaa yidhi jaamacada xalay sidaa yidhi unbay noqon lahayd marka anigu waxaan leeyahay kaydkii wuu yaalaa laakiin gunteedii waxa weeye dadka Soomaalida meel walba ha joogaan halkan ha joogaan meelo kale ha joogaan waxa halkaa ina dhigay waxa ka mid ah aniga ila tahay ya anigu waan diidanahay dooda ah baadiyuhu inay xariir u yihiin war baadiyuhu waa inakum wey soo dhammaad gal waa laga yaabaa qabiilka si gooniyo kale inuu isticmaalaan laakiin dadka baadiyihii dhibaato badan bay leeyihiin garashadoodu way gaabantay maanta ninka baadiye jooga maxaan ku dhahay Djibouti gudaheeda shisha jooga haddaad soo kaxayso maanta ya oo tidhaahdo TV-gan maamul ya nin wanaagsan baa tahay de ma karayad soo maad garan marka baadiyaha la fahaantiisu wuxuu leeyahay ina badan ya oo in loo baahan yahay in laga koro soo dhammaad garan kayd aqooneed lagama maarmaan weyn kayd aqooneed uma wax lagu kala bixi karaa la isku garan karaa hebel iyo hebel la kala saari karaa haddii kale marada weyna jaahilnimada la weyn ku qoslaya oranaya cilmi baadhis baa waqtigan hadda Soomaali sameynaysa waxaad leedahay taa gunta dheer liyo taa kala kasla u hadlay ilaa cilmi baadhis waxa la wadaa meelaha si wada qof u hadla waxay marxaati ka tahay jaahilnimada waxa ay gabagabaa haddii uu ninka reer baadiyihii telefishinka maamuli waayo ninka aqoon-yahanka haddii uu miyigeeno inaanu baraarka maqasha u sii dayn kareen ari waa art kale 200 oo neef oo ariya oo halkaa ku jira oo magacyo leh ayaa inan yari 100 maqala oo maree ku jira ayay islaantu xerada intay ka hadasho ayay dayla tiraahdaa baraarku calaamad male yartu intay soo qabatay diisa waa shaqo kale oo gundhigeeda leh waa inuu baahannahay jaahilnimaduna ma aha inuu qofku wax qori waayo isagoon waxba qorin buu dadka caqli badnaan karaa taasi waa mid sheekadaadii ma ku soo noqonaya cilmi baaristi iyo raasimaal ma loo hayeeyo wixii axmedna uu ka sheekeeyey hantida ugu badan ee ka soo baxdaana waxa weeye markuu shirkani dhammaado inuu buug ka soo baxay kuwii hore dhammaadayna mid walba buug baa ka soo baxay buuggiina library-gu yaalaa daayartuu yaalaa dadkuu yaalaa ninkii sidaa suugaan baad ninkii sidaa ciyaaraha sayliciga baad oo Cumar Macallin maanta ka sheekeynay ninkii sidaahda dhibaatooyinka kanaacadu ay keentay dawadan ay baratay baad wixii dadka Soomaaliyeed culimadii ay isu geysteen buugaasi ku ururayaan waxaan u filaynaa inta dawrdo maaliyadu way kolba waxay ku xidhan tahay dadka abaabula ee loo imanaya martida loo yahay quwadda ay keenaan ayay ku xidhan tahay qaarkeed waxay ka timaadaa dadka degan institutionska ay leeyihiin dawladda Djibouti jaamacadda Djibouti halka la degan yahay wixii hantiye la hayo ayaa la geliyaa qaarkeed waxay ka imanaysaa qofka dibadda ka imanaya oo isagu iskeena anu waan iskeenay soo garmays jeebkaygaan isku keenay waxaan filayaa Cabdiraxmaan jeebkiisu isku keenay dadka dibadda ka imanaya iyana way iskeenayaan dibadda dadka adduunyada kale lacag baa laga ururinaya oo loo leeyahay arrimaha caynkaas ka socda Djibouti marka taageeradeedii baanu banahay marka dawr iliilanood ayay ka soo baxdaa wixii sidii lagu maamulayay loo hawsha loo waday marwooyin iyo mudanayaal intaana waxaan ku soo gabagabeynaynaa doodii aan ku qabqaabanay guriga ummadda ee magaalada madaxda Djibouti oo baryahanba uu ka socday shirweynihii 10aad ee ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee baryahan ka socday guriga ummadda ee magaalada madaxda Djibouti waxaana nagala soo qayb qaatay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo boobo ku magac dheer oo ka socday Akadeemiga Nabadda iyo Horumarka ee Somaliland iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar tani tan dib u kulmi doono waxaan isaga tegaynaa nabadgelyo iyo nolol